الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي تضباط هي كتاب كأنه تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. بابك أفراد ابن القيم وحو بابيي إن ilmuhu markay dhashaan lagu aadaamo dhegta midigta ah laguna aqimo dhegta bidixda ah. Arrintaas marka maxaa ku soo arooray ma sax baa mise waxbaa ku jira dacfi ah. ileen qof walba hadalkiisa waxna waa la qaadan waxna waa la radinayaa ilaa saaxiba hada alqabri siday culimadu yidhaahdeen oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii laga reebo inta kale warkooda waxna waa laga qaaday waxna waa lagu celin. in ilmaha lagu aadaamo iyo aqimka markaan fiirino laba xadiis baa taqriiban kusoo arooray. xadiiska abi raafic oo imaamu tirmidi soo saaray wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calay wasalam markuu dhashay wiilkii la odhan jiray xasan binu cali oo gabadhiisii faatima ay dhashay wuu ku aadaamay. xadiis imaamu bayhaqi uu soo saaray fi shucab aliimaan ayaa isagana wuxuu leeyahay wuxuu ku aadaamay dhegta midigta ana wuuga aadaamay tan bidixda ana wuuga aqimay. laakiin ibnu qayim wuxuu yihi sanadka waxaa ku jira dacfi daciif weeyaan. haddaba masaladan aadaanka iyo aqimka ah siday tahay, culimada intaynan xadiidka u gelin, culimada waxay qaateen sida aimada afarta oo kale imaamu shaafici, imaamu axmed binu xambal iyo imaamu abu xaniifaba waxay qabaan inay aadaanku uu yahay sunne laguna aadaamay ilmaha wax dhibana ayna lahayn. imaamu maalik isagu wuxuu yihi maya, isagoo xadiidkan fiirinaya inuusan saxiix ahayn. ayib culimada mucaasiriinta xataa marka la fiiriyo sheekh ibnu baaz iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo waxay qaateen iyaguna inay tahay sunno ay tahay oo wax dhibaato ayna lahayn aadaanku. aqimka isagu waa daciif weeye. sheekh alalbani raximahullah oo adee sheekhi isagu axaadiista looga dambeeyey runtii isagu waagii hore wuxuu sugay inay tahay sunno in lagu aadaamo isagoo xadiidkan labadan xadiid isku daray qaatayna inay isquweynayaan oo isxoojinayaan. laakiin kitaabka shucab aliimaan markuu helay waagii dambe wuxuu yiri waxaan ogaaday inuu niman ay ku jiraan kadaabiin ah sanadkiisa, xadiidkuna uu yahay daciifun jiddan iyo mowduuc uu gelayo, sidaas daraadeedna wuu ka laabtay inay sunno tahay in lagu aadaamo. marka marka waxa weye xadiidkii inuusan marka sugnayn ayaa kasoo baxaysa meeshii, sidaas daraadeedna aynan aadaankii iyo aqimkii midna uusan daliil xoog la haysanin insha allahu tacaala. sidaasna waa siduu sheekhu uu qabo. almuhim marka waxaad moodaa masalada dee culimada islaamku masaa-isha badan inta badan khilaafaad baa ku jira, marka qof soo afjari karaana ma jiro, sideedaba ma soo afjari karaysid adigu. marka insha allahu tacaala waxaan uga tegaynaa alamru waasic inuu yahay. qofkii qaatay inuusan haddii xadiidkiisu saxiixa uusan ahayn, sheekh alalbani wuxuu qolada aan qabin in xadiidka daciifka lagu dhaqmaayo, sidaas daraadeedna masaladii kuliyanba uu ka laabtay insha allahu tacaala. sunnadii iyo khayrkuna wuxuu ku jiraa in sunnada la qaato biidn illah. masalada labaad oo ah baabka shanaad waa istixbaabu taxniiki, in ilmuhu markuu dhasho intii timir lasoo qaado dhamxalaga meeshan kore loo marmariyo. taas iyadu waa saxiix oo saxiixeynkay kusoo aroortay. abu muusa wuxuu leeyay markii ilmo ii dhashay ayaan rasuulka u keenay sala allahu calay wasalam. wiilkii wuxuu u bixiyey ibraahim, wuuna u timir intuu soo qaaday wuuna halkaa dhamxalagaa u mariyey, wuxuuna ugu duceeyey barako. kadib buu wiilkii markaa ii dhiibay. waxaa kaloo sugan oo saxiixeynka ku sugan markii inuu rasuulku sal alla alay wasalam ibn abi talxa wiil la odhan jiray cabdallah u dhashay abi talxa waa umu sulaym zawjkeedii uu u magac bixiyey, uu cabdullaahi u bixiyey. bara iyo anas iyo buu u dhashay iyo yuu la dhasho walaal la ahaa. waxaana ku sameeyay bukhaari uu soo saaray muslimiintu markay magaalada madiine yimaadeen inay aaminsanaayeen nimankii yahuudda ahaabaa waxay dhaheen waan idin sixirnay oo ilmo idiin dhalan maayo, oo marka inaa zubayr ibnu cawaam loo dhalay wiil cabdullaahi loo bixiyey. meesha quba markay yimaadeen muslimiintu aad bay ugu farxeen, wayna takbiir allahu akbar allahu akbar way ku farxeen. rasuulku sala allahu alay wasalam baa loo keenay, rasuulkuna taxniigii buu u sameeyey, intuu timir soo qaaday ayuu u mariyey halkaas, wuxuuna ugu duceeyey
baraku ugu duceeyey, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo muhaajiriinta loo dhala ayuu ahaa. marka sidaasa waxaa soo bixi insha allahu tacaala xadiidka taxniiga oo ilmaha in dhamxalaga loo mariyo markuu dhasho timir waxa ugu horeeyay uu noqdo timirta wuxuu afka geliyo inuu sunno yahay, laakiin aadankii qaamadu iyagu sunno ma aha. wallahu aclam.